kulanti waxaan daawadayaal waxaan rajaynayaa inaa fiicantiin intaa kadib waxaa jira mawduuc aan u balansaneen inaan ka hadalno oo aan waqti u weynay oo aan raamaanta inaan ka gaarsiin insha allahu tacaala ramadaan kariim inta aan ku jirno ramadaankan wax video ma duubin maadaama aad u mashquulsanaa intaa kadib su-aashu waxay ahayd ka waran sidee arrintaas laysu waafajiyaa su-aal weligaa ma iska weydiisay waalidiinteenna ama aabayaasheen waxay ahaayeen dad waqti adag soo maray xaalad xunna ku jiray gaar ahaan waayihii ugu dambeeyey soddonkii sano soddonkii sano ee lasoo dhaafay dagaal waddan burbursan iyo jahawareer inay markaasi ku dhex samaysteen dhaqaale inay lahaayeen inay ganacsato ahaayeen inay xoolo lahaayeen inay beero lahaayeen hadba sida markaasi qofka filligiisa uu ahaa annaga maanta marka loo fiiriyo dadkaas aqoonta ay lahaayeen maanta annaga ma lihin waa ka aqoon badannahay marka si loo fiiriyo adduunyada maanta Soomaaliya gaar ahaan sida ay xaalku yahay bulshada Soomaalida cilmi ahaan xadaarad ahaan way ka ilbaxsan tahay dadka dambe gaar ahaan teknolojiyadda marka lagu daro aqoon ahaan maadiyan ka hadlayno dhanka diiniga ka hadlaymayno waxay u eg tahay inaan ka aqoon badannahay dhankii waalidiinteena iyo dadkii naga horreeyay macadallaha iyagaa naga dhaqaalo badan naga taajirsanaa maxaa waa isbedeleen su-aasha waxay tahay marka maxaa farqiga dhib maxaa dhacay ma dhaqaalihii waddankaa yaraaday ma adduunka oo dhan baa yaraaday ma annaga wax naga qaldan yihiin mase haddaan kasoo bilaawno marka taariikhda insha allahu tacaala nidaamka gumaysiga ee dadban ee khariban ee iskuullada systemkana qayb okiya insha allah waa ka hadli doonaa 1990 dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre wixii ka horreeyay dowladda military ayaa waddanka talinaysa dowladda nidaamka iyo xeerka ku talinaysa waxaa ka mid ahaa nidaam hanti wadaag la dhaho nidaamka hanti wadaagga ah wuxuu u shaqeeyaa dowladda ayaa wax walba iskale adna waxaa tahay shaqaale ka mid ah shaqaalaha dowladda u shaqeeya wax adiga ku gaara ma yeelin kartid oo aan ka ahayn guriga aad deganta shay walba oo markaasi jiray hadday tahay warshadaha hadday tahay dhaqaalaha kale ee la xiriira waddanka yaalla ama beeraha wax ka soo baxa dalagyada guud ahaan dowladda ayaa la wareegi jirtay iyadaana iib geyn jirta suuqyada geyn jirta caalamka xoolahana ku dar warshadana sida official waa taqaanaba maadaama ay hadda burbureen 1992 markii dowladdii burburtay militariga ururadii la dagaalamay ay rideen hal mar ay ummadda Soomaaliyeed ku soo waabaristeen iyagoo aan waxba farqi ku hayn qolihii muxuu ahaa wax magaratada ahaa